ciidamada Kenya ayaa garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxay su'aalo ku weydiiyeen xildhibaano la sheegay in si qarsoodi ah ay ugu safreen magaalada Muqdisho. xildhibaanadan oo ka tirsanaa dawladda Kenya ayaa wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegayeen ama warar soo baxay waxa ay sheegayeen in ciidamadu ay xireen hase ahaatee saraakiisha booliska ee Kenya ayaa arintaasi beeniyay. wariyahana Cabdiraxmaan Khaliif oo tagay garoonka oo ahaa halka su'aalaha lagu weydiinayay xildhibaanadaasi ayaa warbixintan inoo diyaariyay. dowladda Kenya ayaa beenisay inay xirtay qaar ka mid ah xildhibaanada gobolka Waqooyi Bari ee dhawaan safar ku tagay dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho. xildhibaanadan ayaa waxaa maanta ay dib ugu soo laabteen magaalada Nairobi halkaasoo ciidamada booliska Kenya ay wax ka weydiiyeen safarkii ay ku tageen dalka Soomaaliya. qaar ka mid ah xildhibaanadan oo TV-ga RTN la hadlay ayaa iska fogeeyay warar maanta qabsaday baraha bulshada taasoo ahayd in lagu xiray garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta. xildhibaanadan ayaa sheegay inay la kulmeen madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo halkaasoo ay iska wareysteen arrimo ku saabsan amniga iyo sida loo dhameyn lahaa kooxda Al-Shabaab oo dhibaato ku hayso ummadda Soomaaliyeed. xildhibaanadan ayaa sidoo kale sheegay in socodkooda uu ka warhayay madaxweynaha dalkan Uhuru Kenyatta. annagoo 11 xildhibaan ah oo nagala soo doortay Gaarisa, Wajeer iyo Mandera waxaan u tagnay madaxweynaha dalka Soomaaliya. sidaas ogtihiin taariikh 24 bishii labaad hadda la soo dhaafay waxaan la kulannay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta annagoo arintii nabadgelyada dhibkii macallimiinta soo gaaray inta ka hadlayna ayaan u tagnay. waxaan isku afgaranay dadkii gobolka iyo arrin walba oo daawo ku imaaday in aan daba galno. waxaan rabaa inaan idin sheego sida aad baraha bulshada ku arkayseen xildhibaanada lama xirin xabisna lama geynin. arinta aan u tagnay Soomaaliya waa arin madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka barqaway 2 isbuuc ka hore waan la fariisanay dhibaatada ka jirto gobolka inaan xal u raadino meel allaala iyo meeshayna la gasho. Soomaaliya waa dawlad daris aan nahay waa dawlad aan daris wadaagnahay wax ol naga ma dhaxeeyo wixii dan oo naga gasho waan u aadaynaa. taa waxaan rabaa inaad la socotaan sida la sheegay anagoo 11 xildhibaan ah oo ka kala socda Gaaris, Wajeer iyo Mandera yaan socdaal gaaban ku tagnay magaalada Muqdisho waxaana u tagnay arrimaha ka jiraan amni darrada ka jirto gobolkeena ama North Eastern Region ama Gaaris, Wajeer iyo Mandera. waad ogtihiin maanta 3 macallin oo deegaanka u dhalan ka soo carreen iskuulada way xiran yihiin dhibaatooyin fara badan baan soo gaadhay. annaga markaan la kulmay madaxweynaha Kenya wuxuu nagu yiri waxaan rabaa adinkoo mas'uuliyiinta inaad dadkiina nala soo hadashaan wax alla wixii amniga lagu soo karana aad ka meel kadaan. anaga markaan aan tashanay waxaan ogaanay shabaab saldhigyada meesha nagu soo diray Soomaaliya tahay dawladda Soomaaliyeedna waxaan maadaama isku dadna aan isku laqadna aan nahay anagoo Kenyaan ah waxaan u doonay talo iyo wax isweydiin iyo isweydaarsi. socdaalkayna alxamdulillah wuxuu ahay in aan ka talino nabadgelyo la'aanta taala xuduudka Kenya iyo Soomaaliya. socodkayna wuxuu ahay in aan la tashano madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo in aan la tashano sifa aan ku aaminka aan ku sugno wixii tale ah iyo raay aan isweydaarsano waayo dhulkii nabadgelyo la'aan ayaa ka taala. siyaasiyiinta gobolka Waqooyi Bari ayaa isbuucii hore la kulmay madaxweyne Uhuru halkaasoo uu baaqay inay gacanta ku soo dhigaan shabaabta soo gasho qaybo ka mid ah gobolkan. Cabdiraxmaan Khaliif RTN Nairobi.